adeega yaasiin caraale axmed adeegay markay nimca kugu lahayd walaashayey waa la ii qabsaday ee tolkeen u yeedh oo tolkeen wargeli maxaad uga jawaabi weyday adeegay waxa la joogay nimco markay ku lahayd ay timi walaaley waxaana igu dhacay isnoqo iyo markii aad lahayd walaal waanu ku soo korinay xaqna waanu kugu leenahay waananu kula joognay adeegay anaa joogay hooyadeedii runta ahaydna ilaahay naxariistii jannaha siiye dadkii la socday ee hargeysa joogay adeegay ka mid baan ahaa adeegay mid baan kuu sheegayaa adiga iyo cuqaashiisa soo raacday iyo tolkaa 16 sannadood ka sakow waxa maanta nimco hadday waxu kordheen aad wax uga qaadaysaan ma gibirkii awaligiinba guri jirteen iyo qaadhaaka weligiinba bucur bacayna lahaydeen ayaad nimco ka doonaysaan nimca markay dna qaaday ay ogaatay inay hooyadee tahay hooyadeed anagoo dna la qaadin ana ogeyn inay hooyadee tahay nimci miyaad xaggeed ku maqnid adeegay ay intaa telefoonka kuugu jirtay adeegay markaad lahayd waxaan tegay guri fanaan oo lagu qayilayo oo khatarad daahirana weligay arag ay rabadaan taho laga buuxo inanteedu la joogto dee nimco inay fanaano tahay waad ogeyd kaamanay maqnayn markii si aad lahayd awrar bay qashay oo xoolay samaynayso baagag dharay keentay waxay u keentay nimco adeegay ma wax kaa qarsoon bay ahayd dadkan maanta sheekh ka soo baxay ee kula anaga ogeyn halkay ku dhalatay xaabeeyo nuur ilaahay naxariistii jannaha siiyo way dhimatay xaabeeyina waxay run ka ogeyd waa wax tegey ay sheegtay wixii uu sheegay yaasiin caraale axmedna waa wax la ogaa uu yidhi inantaasi waxay baadi u tahay beesha sacad muuse iyo halka soo qabtay markii se la qabsaday inantan 3 jir lagu geeyay jabuuti leedii 8 jir baa iskuulka lagu qoro la keenay sababta loo keenay maxay ahayd adeegay waxba kaama qarsoonaa dnka nimca qaadayna adiga iyo sheekhiina dadka u weyn ee maanta yidhi waa wax la samaystay heedhe oo beena sacad muuse wax beena ma samaysto sacad muuse dadkiisaa ka badan inta lagu hoos nool baa ka badan laakiin nimco waxay tahay bay tahay nimco yaasiin caraalena waxaan ogahay inay reerkoodii reer jaamac nimco yaasiin jaamac weeyaan reerkoodiina reer diiriye inay ciidda iyo camaarkaa ka badan yihiin idin lamana soo doodin idin lamana soo qaadin waxaanad cambaro u odhanna cambaro waa walaasheedii runta ahaydee xaqa ahayd maantana adiga cambaro meel baa ladi wada keni oo dnka laydinkaga wada qaadi hargeysana maxkamadda hargeysa waxa lagu quuqiyo mahoo t u k ayaa soo caddaysay timihii hooyadeed iyo timihii nimcoba marka waxaan idiin sheegayaa waxay nimca idin siin jirtay iyo waxa idiin dhistay iyo waxa idiin qabatay annagu waan idiin ognahay inantayda waxbaa noo soo barteen xaq baa ku leedihiin xaq dadnimo ayaa ku leedihiin waana idiin samaysay maanta laga bilaabana waxaan ku odhan lahaa haddaad xoolo doonayso meelo kala weydiiso laakiin nimco xoolo kuma helaysid tii maxkamadda aad furteenna inaad fadeexad ka qadaystaan baan ogey idinku nimcin baama maanta hadal haysaane nimco 100 dhaafsiisan ayaanu idiin haynaa hooyadeed baanu idiin haynaa walaalaheed baanu idiin haynaa aabaheed baanu idiin haynaa nimco inay sidii reerkoodu loo waayey ay u baabeen baanu idiin haynaa cambarna inay keligee taagantay baanu idiin haynaa adiguna adeegaay nimca waxay adiga ubadkaaga tartay iyo waxay idiin dhistay hadday ku qanci weyday fadeexadunbaad ka qaadi doontaa kuwa kuu soo hadlaya elada waxii ururiya ama wixii sameeyana wax meel gaadhaya maaha nimca hadday adduunyo dhisanayso iyo hadday meel gaadhay iyo hadday qabsanaysaba ilaah weyna waaxidkaabaa ku simay ninkii xaq daranna ilaahay baa og nimcana hooyadeed iyo aabaheed soo koriyey dhibaato uma haysato ilaahay jannata firdowsaha ka waraabiyo yaasiin caraale iyo caasho diiryo samatar annagu wanaag baanuu haynaa waayo inantaydiiya wax noo soo bareen
oo nool baanu haynaa wixii dhacayna way dhaceen waananu ilownay laakiin adeegay haddii aad ka hadhi weydo nimco waxaad ogaataa inaynu annagii goobjoogga ahayn ee nimco la taagnayn weli la joogno ogow